أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan kusoo dhex jiray casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka ah waa casharkii 59aad suuratu yuusuf waa aayadda 7aad suuratu yuusuf ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin qisadu waxay kusoo bilaabatay markii hore inuu nabiyullaahi yuusuf ilaahay inuu yiri waxaan ku qisoonayna qiso mid ugu qurux badan nabiga lagu yiri haddana nabiyullaahi yuusuf oo aabihiisay ka dhaxaysay markaa oo wuxuu yiri waxaan ku riyooday laba qoraxdii dayixii 11 xidigood oo ii sujuudaya odagiina wuxuu uga shakiyay wiilkiisaan inuu wiilasha kale wax yeelaan oo ka waaweyn markaasuu qariyay saas kusoo bilaabatay waxyaabaha marka laga qaadanayay ma wax kama inaan tilmaam waxa kamid ah riyada waxa la yiraahdaa haddaad riyo wanaagsan ku riyootid riyada xuseeda lamaba sheegaba laakiin haddaad riyo wanaagsan ku riyootidna qofka ku jecel kaliya loo sheegaa qof xooga cadow ku ah oo ka naxay riyadaas ama dhib kaaga imaanay ama dhibsanaya looma sheego marka waa qariib ku yiri weey diinteena saas weey qofka cadowgaaga ah riyada wanaagsan uma sheegaysid marka taas ay ahayd midda kale waxyaabaha maaragtay subxaanahu wa tacaala ilaahay maaragtay markii hore la sii sheegay waxa weeye taawiil il xadiis waxaas nabiyullaahi maxamed yacquub maadaama isna nabi uu ahaa wuu sii tilmaamay riyooyinka in la barayo oo maxay ku ahayd xadiis min taawiil ilaahay wuxuu ku barayaa kadalika yastabiika rabbuka yucallimuka min taawiil il xadiis riyaduna waxay noqon doontaa waxyaabaha nabiyullaahi yuusuf ku soo bixi doono oo maaragtay warka dambe ilaa uu boqorka noqday qofkii masar casiiska noqday weey marka qisadii sidii wax bilaabanayo kale ilaahay noo tilmaamaya oo wuxuu leeyahay laqad xaqiiqa kaana waxa ahaaday ilaahay baa dhahay subxaanahu wa tacaala waliba waxa la yiraahdaa qisadan nimanka yahuuda nabigu isagoo wali maka jooga iyo inay rabaan inay ku xojeeyaan bay rabeen bal yiraahdaa yuusuf nabiyullaahi yuusuf weydiiyay kitaabka tawraada ay kutubta hore ka hadashay marka waxbay ka weydiiyeen suuradan bixadaafiira dhamaanteed markii uu akhriyay dadka yahuuda haday dad xaq rabay yihiin markaasay rumayn lahaayeen maxaa yeelay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wax meel ku qorana ma akhrin jirin gacantana wax kama qorin jirin meesha uu ku noolaana yahuudiba ma joogin iyo reer bani israa'iil toona maka oo kama uusan faa'iideysana waxyaabahoodii kutubtoodii waxba kama uusan aqoonin nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaa daraadeed waxay la garanaya qofkan saan oo kale qisadan oo sida quruxda badan oo sax ah marka yahuudu kuma khilaafin bali laakiin way maaragtay su'aashiga wax ka weydiiyay bali tanu ku akhri laqad xaqiiqe kaana waxa ahaa fi yuusuf nabiyullaahi yuusuf arrintiisa wa ikhwatihi walaalihi yuusuf walaalihi 11kii weeyay aayaatun aayaad ba ahaaday lagu cibra qaato lisaa'iliina dadka weydiinaya ayay waxay u ahaayeen aayado lagu cibra qaato saa'iliintaasu yahuudaas waa su'aaleen ama dad kale oo iyaguna cilmi ahaan u raadinay waa saa'iliin weeye waxa kale oo cibra ay u yihiin aayaad u yihiin dadka su'aalaya nabiyullaahi maxamed nabinimadiisa ay muujinayaan salawaatullaahi wasalaamu calayhi nabiga nabinimadiisa ayay muujinayaan qisadaas nabi yuusuf iyo walaalihii bay muujinaysaa nabigu inuu yahay rasuul ilaahay soo dirsay sallallahu alayhi wasallam culumta noocaana inaan cid kasta iska heli karin way marka saas qira waxa jirta aayad oranaysa aayadda marka waxa way aayaatun way sida maaragtay hadda noo taal waa ikhwati aayaatun baa ku sugnaaday lisaa'iliina aayaadkuna waa wax lagu cibra qaato waxyaabo cajab leh oo lagu cibra qaato oo waana ku jirto ayaa ku sugnaaday way waxyaabaha marka laga faa'iideysanayo waxa kamid ah aayaadkaas aad bay u tira badan yihiin waxyaabo cajab badan oo suurada maaragtay lagu arki doono oo waxyaabaha lagu cibra qaadanayo aayaadka dadka isweydiinaya waxa kamid ah maaragtay waxyaabaha arrintu ay ku damayn doonto sabirkii nabiyullaahi yuusuf baa kamid ah ka sabray waxyaabihii maaragtay u sabray maaragtay godkii uu soo maray dilka ay walaalkii khatar ku sigtay inay dilaan waxaan ku raahdaa xumaantii iyo ku sabray islaantu ka sabri doono waxyaabahaas oo dhan baan arki doonaa way marka u damaysana ku damayn doono waxay isaga inuu guuleysto waxyaabahaas oo dhan taas arki doonaa way ilaa 4 imtixaan oo waaweyn markii imtixaanadka la ureeyo markii hore inay dilaan bay rabeen laakiin dilka waa ka baxsaday waxay ku gaareen inay god ku ridaan ceel ku ridaan haddana waxay go'aansadeen godkii markuu ka soo baxay
ayuu wuxuu galay waxa la yidhahda riqi addoonnimu ku dhacay waa la addoonsaday waa la kala iibsaday haddana gurigii islaantii la geeyey ayuu dhib kala kulmi doonaa marka dambena xabsibu ku dambayn doonaa ilahi wixii subxaanahu watacaala id wakti xusbaali qaalu id wakti ayay qisadaasi dhacday wey qisadii baa isku xiran wey id wakti qaalu ay yidhaahdeen qaaludan waxaa iskale walaalihiis 10kii waaweynaa wey wiilkaan ka baxdaa waxba looma sheegayo waana yaryahay id wakti qaalu ay yidhaahdeen ilma yacquub baa yidhi yuusuf walaalihii la yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii hadalkaa u fiirso sida loo qalloocinayo 12 isku aabba weeye laakiin yuusuf iyo walaalkii waa yuusuf iyo inahooyihii wey la bahda shaqiiqiisa wey dhinac bay u dhigaya odagaa naga jecel bay oran doonaa intaas cadaawad ka dhigaya id waqti qaalu ay yidhaahdeen ilma yacquub yuusuf walaalihii la yuusuf laamka waa qasam baa layidhi la yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkiisaa ku bahda ah ayaa axabu la kalgacayl badan yahay ilaa abiina aabbahan inti ka ah mina anagu naga kalgacayl badan yahay ayaa axabu la jecel yahay ilaa abiina aabbahan xaggiisa la jecel yahay mina anagu naga jecel yahay walxaal buu naga jecel yahay naxnu anaguna cusbatun jamaaca aanu nahay xoog la waaweynay oo koray wey cusbada waa ragga jamaaca ah cusba bimacnaa jamaacna way tahay macno kalena way leedahay markii dadka xoogna waa cusba lama yidhaha hadday rag xoogsaday ahayn oo kacay ay ahayn cusba waxaa kaloo la yidhaha marka rag isku hilbadirirayo weliba isku duuban wey oo isku naban way ka dhaxaysa casabiya macnaha wax ka dhaxaysa isku hilbadirir walxaal buu maaragtay labadaa wiil oo yaryarina ka jecel yahay aabe wanaxnu anaguna aan nahay cusbatun jamaaco rag xoogle oo kacayo reerkii rag u shaqaynaya maxay tarayn wiilasha yarka hadda soo kacayn waxba aan qabanayn oo wiil yaryarka ah buu naga jecel yahay ina abaana aabaheen bay yidhaahdeen la fii dalaalin dhunsanaan iyo baadinimu ku sugan yahay mubiin cad sidaa waa ku lunsan yahay uma jeedaan baa la yidhi diinta xaggeedu ka lunsan rasuul ilaahay buu ahaa nabi ilaahay buu ahaa xagga diinta waa ka hagaagsan yahay xagga maamulka qoyska oo inuu laba wiiloo yaryaroo bahyaraho aan xoogoodiiba weli la arag inuu jeclaado weliba yuusufay si gaara uu u jeclaabay oran doonaa wiilka kale waa iskaga lamaaninayaan inuu jeclaado 10keenan inuu shaqaynayo xooggalo weli nafcoodii la gaaray ee kuwa aan weli nafcooda la gaarin una ka jeclaado odagu saa waa ku dhunsan yahay bay leeyihin ina abaana aabaheen lafii dalaalin baadinimu ku sugan yahay iyo dhunsanaan baadinimadu dalaalkoo mubiin cad oo arrintaa maamulka inuuna ka jeclaaday labadaa wiil ayuu ku dhunsan yahay wey marka nimanka colaad baa gashay wixii uga baqaayay walaalaha ha u sheegin uu lahaa waxba awalba ka dareemay nabiyullaahi yacquub calayhi salaam waatuu ku yidhi walaalaha ha u sheegin riyadaada uqtuluu dila bay yidhaahdeen yuusuf dila yidhaahdeen saasay ku taliyeen aw idraxuuhu ama ku xoora ardan dhulfa ku xoora bay yidhahdeen ya darxiga waxaa la yaha wixii la iska tuuro aan la rabin xoora bay yidhahdeen sida haddii badda doonta kugu kacdo oo doonyaha badeecadda saaran ilaa naftaa loo baqaya baddaa la dhigay waa la daadinaya haddii aad cararaysid alaabta waa iska fududaynaysaa saasoo darxi waxa la tuuraya aan la rabin wey ardantuna waa nakiro meel fog oo aan la aqoonin yacquub uusan gaari karin ku tuura bay leeyihin saas wey uqtulu dila yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku xoora ku tuura ardan dhulfa ku tuura bay yidhahdeen aan la garanayn yaklu ha banaanaadeen lakum idinka wajhu abiikum aabihi wejigiisu ha idin banaanaadeen oo wiilkaanu idinka jeceliyo ku mashquulayo meesha ha ka baxo cid kale oo jeclaaday haddii helima inaguna jeclaanaya markaa wey watakuunu idinkuna aad ahaataan min bacdihi wiilkaa dilkiisa kadib qowman qood aad ahaataan qowmkaasoo saalixiina wanaagsan suuban waa toobad keentaan waa toobad keentaan yacni dilkaa waa ka toobad keenaynaa haddaynu ambino tuurana waa ka toobad keenaynaa aynu lumino meelaha ku lumino waa ka toobad keenaynaa marka saalixiin baynu noqonaynaa waa toobad keenaynaa saalixiinna waa noqonaynaayo reerkuna waa hagaagaya odaygu inaguna jeclaanaya qoysku buruntigu isku noqonaya wax hadda maaragtay aan maaragtay xumaanta nagu kala dhex jirto aan wiilkaan odaygiina ka jeclaaday iyo waxa meesha waa ka baxaya salaax baa imaanaya bay leeyihin ya intaasay arrintii ku tuntumiyeen mid baa marka odhan doona dilka ka daaya oo si kale aan la macaamilo qaala wuxuu yidhi kii ugu roonaa qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid odhanaya oo minhum ilmo yacquub ka mida yuusuf walaalihii laa taqtuluu hadilina war dilku waa dhib badanya bal xoogaa 2 tallaaba haddaynu qaadayno midda xoogaa ka sahlan labaduba shar weeye laakiin sharkaa ina sharki qaarba ka sahlan yahay 2 shar haddaynu samaynayno midka xoogaa sahlan samayno saasuu odhan doona qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid odhanaya oo minhum ka mida ilmo yacquub oo yuusuf walaalihiisa wuxuu yidhi mid hadal odhanaya wuxuu yidhi laa taqtuluu hadilina yuusuf hadilinina waalquu ku rida hu yuusuf ku rida fii qayaabati ljubbi ceelka meesha libirkiisa oo aan loo jeedin jubbiga waxaa ceelka la qodo dhulka la jaro la qodo jubbi waa ceelkii waa bi'rigii
qayaabkuna wuxuu noqonayaa qayaabaadna waa qira kale qayaabaat albi'ri ceelka meelaha aan la arkayn macnaa ceelkan waa inuu ceel dawa yahay oo qofku markay soo kortaago uusan arkayn qofka salkiisa ku jira waa ceel dheer weeye waa inuu ceelkaa saas oo kale marka meel qofku ku qarsoomayo salka ceelka ku tuura wey halkaa ku tuura wey qayaabada marka waa meesha isha aan lagu arkayn wa alquuhu ku rida yuusuf buu yidhi fii qayaabati ljubbi ceelka meeshiisa qarsoon oo libirka ah inaga libdhaysa marka lagu tuuro wey maxaa dalabkaasu marka soo jeediyey yaltaqidhu ha gurbiyeen oo ha bixiyeen bacdu sayaarati dadka socotada qaarkood ha la bixeen ha la tageen meel fog ha la aadeen saa ha ku tago taas oo kale iltiqaadka waxaa la yidhahdaa baadida marka aad cid aan shay aan laga warqabin markaad ka kor alla waa baadi aad tidhaahdo oo kale ama saas oo kale qof markaas yani qofku shaygu ka duldhaco usan awal meesha ku ogeyn yaltaqidhu baadi ahaan ha u qaadeen oo ha gurbiyeen oo ha la tageen bacdu sayaarati dadka socotada qaarkood ha gurbiyeen ha la tageen in kuntum hadaatiin faacilina kuwa samaynaya arrintaan aan soo jeediyay haddaatiin kuwa samaynaya sidaa yeelo dilka iska daaya wy saas u jeediyey nimankii waxa la tashadaba arrintaana lagu tashaday marka arrintaan in ceel lagu rida ah oo qaabkaa lagu ambiyo hadhow dadka dhulkaa maraya ceelkaa biyo ka dhaansada ha la tageen saas ayay maaragtay taladaani gaareen laakiin odagu wiilka waa ku dhegan yahay laga furfuri kari maayo aad buu u jecel yahay waana waana nin weyn weeye wiilkana aad buu u jecel yahay si looga soo qaadaa la rabaa marka waxaa odaygii baa marka waxaa la rabaa in la beer la xawsado oo la yidhaahdo maxaa wiilkan yaroo walaalkaya ah aad noogu aamini weyd anagoo intaasoo raga ah see wax yihiin aabbaha hadda waa iska taqaaneen oo waalidku ilmihiisa mararka qaarkood iyagoo waxa isaga dabcaawiy oo xataa waxaa dhici karta waalidkaas inuu is yidhaahdo iyo xumaani geline isaga soo dabac oo say rabaan u yeer qaaluu waxay yidhaahdeen ilma yacquub waxay yidhahdeen yuusuf walaalihii yaa abaana waa markay rabaan wiilka inay ka qaataan go-aanka waa gaareen yaa abaana aabbahayow maa laka maxaa lahaanshahaaga oo kugu dhacay laa ta'manna xaalo aadan nagu aaminayn calaa yuusufa yuusuf nagu aaminayn yaa maxay tahay arrintaan yuusuf aadan nagu aaminayn wa innaa anaguna la naasixuuna kuwa u naseexaynayaanu nahay lahu yuusuf haddeeraan u naseexaynaa intuu guriga joogo oo yar yahay oo aan u shaqaynaa oo wax ka korinaa oo haddii aanu na raaco waa u naseexaynayna oo walaalkaya yaro wey oo ka wey waxaasay ku yidhaha waa naseexada waxa wey qofka si wanaagsan yani kalsooni fiican u siiyaho daryeel fiican u qabto wey taas hebel naasix buu yahay hadii la yidhaahdo yani wax wanaaga oo kalama haro wey waina anaguna lahu yuusuf la naasixuuna kuwa naseexanaya wanaag oo dhan baan una samaynaa wey kuwa naseexeeyaanu nahay wey arsilhu nagu darbay yidhaahdeen macanaa la jirankayaga annaga nagu darbay dadan berri nagu darbay yidhahdeen saasay soo jeediyeen nagu darbay yidhaahdeen yartac ha soo nashaadee wayalcaba ha soo ciyaaree wey radciga afka luuqadda waxaa xoolaha loo isticmaalaa xooluhu markay daaqayaan siiba markay barwaaqada joogaan oo daaqayaan radcigaas waa xoolo daaqsinka wey laakiin bini aadankana waa loo isticmaalaa haddii bini aadanba loo isticmaalo waa marka qofku taraf barwaaqo badan iyo maaragtay cuno baa la yidhahda cuntada isku badiyo baa la yidhahdaa yartac ha soo cuncunee bay leeyihiin meeshaa aan u baxayno dhulkaa baadiyaha barwaaqada ah dhirta ka baxday iyo miraha iyo haddii cunto tahay iyo xataa waxaa la yartacda markuu qofku banaanka hadduu qofku u baxo hawada u furmaysa si fiican buu xukunayaa saas wey yartac ha soo nashaadee bay leeyihin wayatanacam ha soo raaxaystee wayakul yani maa naakul waxaan cunayna hanala cune yartacda saas wey wayalcab ha ciyaare ciyaarta nebiyaasha waxaa la yidhahdaa caruur hada yareerna way ahaayeen ilmaha hadda wiilma yarna waa yahay ciyaartuna ciyaar maarata fasaad keenaysa maahayne waa inay baranayeen waxyaabaha dadka ambiyada loo ogol yahay oo masalan maaragtay si nabigeennaba sheegay waxyaabaha ciyaaraha saxda ah oo in toogta la barto iyo yani tababarka caadiga waxyaabaha traininka la yidhahdo tababarka caadiga ah dadku inay bartaan saas wey wainaa anaguna lahu wiilkaa la xaafiduuna waanu ilaalinaynaa waa ballan kale hadda wiilkan waa dayacnay oo soo xoori doonaan kii labaadoo binyaamiin waaga dambana kelmadaanoo kale dhihi doonaan markaynu suuradda gaaro wainaa lahu la xaafiduuna nagu dar bay odhan doonaan kii kaley odhan doonaan nagu dar wainaa lahu la xaafiduuna waa shalay nimankii yuusuf soo dhumiyaa odhan doona wainaa lahu la xaafiduuna odhan doona wey wainaa anaguna la xaafiduuna kuwa ilaalinayaanu nahay lahu maaragtay yuusuf baanu ilaalin doonaa wey waxyaabaha qofka waalidka waxa lagaga dhicinaya waxaa kamid ah hadallada ay ku hadlaayaan waa wada ta'kiidaad u fiirso ta'kiidaad hadalla adag baa ku jira yani waxay leeyihin maxaad noogu aamini la-dahay
saasoo kale waanu naseexaynayna hadalahaas ku hadlaya waxyaabahaas ku hadlayna aad bay hadalka maaragtay maxaad noogu aamini laadahay waa u naseexaynaynaa rasuulka maaragtay aabbahayow waxay leeyihin waanu ilaalinayna waa inaa lahu kulli hadalkaa la gelinaya inaa baa la gelinaya laamta loo gelinaya khabarkii baa laam loo gelinaya la naasixuuna iyo la xaafiduuna iyo kulli waxa weye waa ta'kiidaad wey hadalka waxaa loo adkaynaya odag inuu marka maanta usoo dabco ka yeelo iyaguna waxay rabaan mar wiilka inay gacanta ku dhigaan oo soo ambiyaan qaala wuxuu yidhi waa yeelkaiyo hadda waalidka waa laga hadlacsanaya qaala wuxuu yidhi inii anigu layaxzununii waxa imuruga gelinaya an tadhabuu inaad la tagtaan bihi wiilka ah laba arrimood buu u sheegay midi waxa weeye waa midii ay markii horeba dareensanaayeen odagu wiilkaan si gaar inuu jecel yahay qaala wuxuu yidhi inii anigu layaxzununii waxa imuruga gelinaya an tadhabuu bihi inaad la tagtaan wey taasoo kale allahu akbar taas ay muruga gelinaysa buu yidhi inii layaxzununii aniga waxa hadalka isaga laftiisu ta'kiidaad buu isticmaalay nabiyullahi yacquub inii maaragtay inuu geliyey haddana layaxzununii buu geliyey laam kalu keenay haddana maaragtay waxa weeye wuxuu sheegay an tadhabuu bihi yaxzununii faacilkeedu jumladaana laga dhalaanaya an tadhabuu bihi baa faacil u noqonaysa oo laga dhalaanaya masdarka laga dhalaanaya antaas wey ayaa faacil u noqonaysa tegitaanka dihaabka tegitaanka aad la tegaysaan baa i murginaya buy inuu iga tagaba ma rabo in layga kaxaya ma rabo waa arrintay dhibsanayeen oo qalbiga jeexaysa arrintay markii hore wiilkaba u dilayaan ama meesha uga saarayaanba inuu jeclaantiibuuba sheegayba kiiskiibuu maaragtay nabiga shabakadaas nabiga saasoo kale ugu soo dhacay wey iyagu laakiin waxa weeye kama ay hadlin mana ay muujin arrintaan wuxuu kaloo ku daray wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiyullahi yacquub inii aniga layaxzununii waxa imuruga gelinaya an tadhabuu inaad la tagtaan ilma haddaad tihiin ilma yacquub bihi wiilkaa yuusufa inaad la tagtaan ayaa imuruga gelinaysa buy tegitaankaa laygala tegayo oo meesha aan indhahayga ka qarsoomayo intaasaa muruga igu abuy wa akhaaf midda labaadna maxay tahay wa akhaafu waxaana ka cabsanayaa an yakula inuu cuno hu yuusuf addibu yaygu inuu cuno wa antum walxaal antum idinkoo qaafiluuna moog canhu isaga meelaha intaad tagtaan oo cayaar isaga baxdaan oo ka mashquushaan inuu yay iga cuntaan ka baqayaa wiilkaygi saasuu yidhi wey midda labaad oo kusoo dhacay haddana waxay tahay marmarsiyaba ma ay haysan hadday hadhow wiilkii meel kusoo xooraan waxay ku marmarsiyoodaan soo inay soo raaraasanayaan odaga maxaynu ku dhihi doonaa isagaaba afkiisa laga helo yayda inuu cuntaan ka baqaya yaydaa sheegaysay baa cuntay oranayaan saasay dhihi doonaan wey kelmadii waa ka heli doonaan waxaa leeyahay dadka haddii qofka lagu baaraayo hadalka lama badiyo qofka dad hadday ku hayaan oo kaa baaraya ereyga inta adiga dantaa ka sheeg lakin haddaa hadalka badisid adaa wax badan laga helaya hadalkaaga wax badan inuu ku daboolaado taasaa khayr ku jiraa wey marka wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa an ya'kulahu dibu wa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an ya'kulahu dibu eygu iyaydu inay cuntaan ka baqay yaygu inuu cuno wa antum walxaal antum idinkoo qaafiluuna moog canhu wiilka ah saas ayuu ku yidhi nabiyullaahi yacquub wiilashiisii qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu hadduu cuno addibu yay cuno walxaal naxnu anagu cusbatun jamaaca aanu nahay rag waaweyn oo koran oo jamaaco aanu nahay 10 nin aan nahay inaa anagu idan haddaba waktigaa la khaasiruuna kuwa khasaaray baa nahay ragba ma nihin bay yidhahdeen haddii wiilkaa yaroo aanu kaxaynay annagana raacay annagoo intaasoo nina oo rag waaweyn oo korana haddii wiilkaa yay naga cunto annagaanba waxay yidhaahdeen maaragtay macnaba lahayn kuwa khasaaray baanu nahay dadba ma nihin bay leeyihin halkaasay soo istaageen ilma yacquub halkaas soo istaageen halkaas soo istaageen hadda aabbihii marka waa usoo dabcay wiilkii waa la siin doonaa waana qaylka kusoo ridi doonaa wey ilahi wuxuu subxaanahu watacaala laqad xaqiiqee kaana waxa ahaaday fii yuusufa yuusuf arrintiisa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo wa ikhwatihi walaalihiisi la dhasho ilma yacquubaha waxa ahaaday aayaad baa kusugan arrintooda qisadooda lisaa'ilina dadka weydiinaya ama ha ahaaday kuwii yahuud aan nabiyullahi maxamed weydiiyey ama cid kasta oo wax weydiisa oo su-aashaa weydiisa ama cid kasta oo iimaan rabtahoo nabiyullahi codsata arrintaan in maaragtay wax la iska weydiiyo ama nebiga sal alay wasalama nebinimadiisa ayayba tilmaamaysaa waa aayaad iyo cibro wey taas wey id wakti ahayd qisadaasoo id wakti ahayd ama waqti xus baad oran kartaa hadalkaa isku xiran id wakti qaaluu ay yidhaahdeen ilma yacquub yuusuf walaalihii la yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkiisa ina hooyihiisa ah ayaa axabu kalgacayl badan yahay oo jecel yahay ilaa abina aabaheed intii ka ah isagaa la kalgacayl badan yahay waxaa la ism tafdiilka yani waxa weeye waa la jecel yahay yaa laga jecel yahay annagaana ka jecel yahay ism tafdiilku saas wey haddaad tidhaahdid caliyun adulu min maxamed cali maxamed waa ka dheer yahay ya cali baa dheer maxamed waa ninka laga dheer yahay marka axabu haddii la yidhaahdo annagaana la ka jecel yahay wey labadaa wey
ساسو أنا قاعد لك عليه هذا قصاص وصعدا اسمه تفيلك وحوالك على فضيله إذ وقت قالوا إلى هذه ما يعقوب لا إلى يوسف أخوه ولا كيساكو بهذا أي أحب لك عيل بدنيه إلى أبينا أبيهن منا أنا قلنا قتش عليه بها ونحن والحال نحن أنا قلنا عصبة جماعة ما ركرنا وشقيني أو احتري إن أبا ولا شيء يربون قتش على هذا إن أبانا أبيهن لفي ضلال بعد النبي كسوجي بعد النبي ضلال كاسو مبين عب بعد النبي عب كسوجي حاجة ما عمل كويس كوي حاجة الدين تسمعها اقتلوا الدلة بير هذا يوسف دلة تاسوا الرأي أربع قبا أو يدرحوا أما كحورة بير هذا أرضا دول فك كحورة أرضا دول أنا جرين معنا دول كان ماشى أيوة أي جرين يا ميل أنا هين أرضا دول كحورة يعني أرض بعيدة دول فك كحورة وي يخلو هبنا أنا عليه يا هدي أساس ما يسمع معي يعني واحد ما هذا وقته ما أنت الدنيا وحياة واحد معي تطبع أنت أفرس كل ويا وحين هبل والله دول ماشى كبحه إنك مدح نخونين أما إنك وحنا نخونين أنت سأمل حلو ديك الوضع هذا أنت دل الوضع يا أو إحنا نقطين قفع إلهي وحكي دقينا حبنا نخون معي يعني ديك بالقلة يا ضد الله ديك الله تعالى وحبال بلين يا موياني يا ولا هلاك سما يا موياني وحن الله قفك كدقين من نخوناي قف ديك إلا دالي قف نوح من نخوناي بينوي واي اقتلوا دل يوسف أو ادرحوا كحار أرضا نور كحار يخلو هبنا أنا لكم إذا هيدين بناد خالي هيدين نقضي وجه أبيكم أبيهم وجهيسا وهيدين بدح بنانا ويل كانوا وجعلك إذا كذا مشغولة ماشي هكبح وتكون أذهات من بعد يوسف كذلك أذهات قوم صالحين ما هي أكثر وسوسوبنا توبت كانت ما كان يشان كذب أما حورنا كتوبت كانت تنوي أبين هيدين وركسنا القيس كوي قال وحي قائل من أوراني ومنهم بالما يعقوب كم يوسف ولا له لا تقتلوا هذين يوسف هدينين ورهنت بالحوار كسر دبع بيه وألقوه كل ذا هو يوسف في غيابة الجب عالك ماشي سلمك قرصون يا أو قفك ما ركتي إنها قفك ماشي على جورده قف إنها ضدك كم مكان وياها ماشي كم مكان يلتقطه هجر بيان حتى بعدين هو قادين هو يوسف بعد السيارة ضدك سعوتها ماشي مري دونا قاركوها قادين إن كنتم بدأتين فاعلين كل سيالية قالوا وحي هذا المركب أضيق بالله الله يانو أرنت واسوق عن صديق قالوا وحي يا أبانا أباها يو ما لك محاكو دعي ما لك محاكو سجنادي لا تأمنا حالا هذا نو آمنين على يوسف هذا نو آمنين وإن أنبنا للناس حنا كونا سحني له يوسف أنا نهاي أرسل دير بيرهدين أباه يهو يوسف دير بيرهدين معنا أنا قال الشركة يجي نقول دير بيرهدين قدم بريتو يرتع صون الشعر وهصون عنا وحنا عنا صفة عنه صون الشعر يرتع على وطن صون شجناه قفكم مركز حوالها الله يسمع لك تذكر دي الله يسمع على وينه قفكم برواقة بدن عنوي يرتع هصور راح يسوى صون الشعر وصوت لكي يتنعم معنا هصور راح يستوه وروح بدن الصون عنه وحياها عنا نورس عنوي ويلعبها عياريوي قرأك لا ترتن نرتع ونلعب أن صوع عمتين وصوع عياريوي بينقون السايس يجا اسكت دراية مركا نونك لقى دقو جمعوي يرتع عدي يصير كلي على هذا يرتع صوع عيار ويرتع صوع عمتيو حيالها صوع عنه صون الشاطو ويلعبها صوع عيارو وإن أنا أقول له يسجل الحافظون أخو إلى علنا يعني نهايو لقى بقي ما يقول كأين حنقضوي قال وحي أبيه يعقوب وحي إني أنا قال لي يحزنني وحي إمرق قليليا أن تذهبوا إلى الله تكتب به ويلك أنا لا تكتب تاسع إمرق قليليسا وإنا ويلكاس إن ده كم قناده تاس إمرق يبقى هاي بيري وعمد يدب سنايا وأخاف وحنا كبقيا أن يأكله إنه عنه هو ويلك يوسف الدب يجوا إنه عنه وأنتم إليكم قافلون موج عنه ويلك موج ما ركتي كم مشغولي ساسو نبي الله يعقوب يروي لبدي أهمود مد يدب سنايا وأي ويلك بقول لا يرى أهيد أضيق شعلانتيس إني لا يحزنني تاك ما يتجوابين وقرينا يعني ما إنه كدر يوم مرة بعد مدي يبع عنيس كليه كتجوابين قالوا وحي هذين لين أكل هدوء هو يوسف أبي وياه هدوء ونحن أنا والحال نحن أنا عصبة جماعة أنا رجوا وين أنا وجماعة إن أنا إلى وقت قال خاسر هو خسارة أنا هاي ساسي هذين مدي وقريين أضيق شعلانتيس سعيد ومدي يجرا علاتك قادين قوم أي ربين مركا إليه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب شيطان بقى وحكى للشيخ سيناء فيري يلك يرى ما يرى أبيه مارت ويلك إن الماس كتعليه وواحد كطبيعي بحاول مركا ماشي عن مشكلة تلا واحد الشيطان الله يعقوب وبقى وليش سنة ويرك كقدران شيطان كما شيخ سنة فلما ذهبوا مركا إلى تجين الماء يعقوب لما كي طبعا كان واحد شيء سكوي ويلك يرى إن يقط كل ذا ولا لك بين آدمك وفرسو إيش حنفت بلاي محنك يعني وحوي امتحانك كل امتحان ويتها ونبي الله يوسف ومرينا فلما ذهبوا مركي لا تجين جماعتي ولا لها به يوسف مركي لا تجين ولا القضاء وأجمعوا أي قاميين إجماعوا وحوي لا يسكر راعي حال نين أو قد كيان متر ويسكر راعي
وأجمعوا أي كإجماعين اسكو راعين وقعان سدين أن يجعلوا إن يلان هو يوسف في غيابة الجب عيلك ميشيس اللي بيركيسا وقرصون وقدها إن يكون رداوي يا halkaas markii la marinayay wixii ay sameeyeen jawaabtii maaragtay فلما هذا جوابتي هذه لما sheegay marka waxa weeye aad yani facaluhu way sameeyeen ma yuri waxay doonayeen bay sameeyeen jawaabtu intaa way waxay doonayeen waa sameeyeen wiilka ceelki waa ku ridan wiilka ceelki waa ku ridan way saasa jawaabtaas meesha lama hada jawaabteedii baa meesha ka maqan yani way sameeyeen wiilka ceelka ku riday markii ceelka lagu riday maadaama waxa way reerka wiilkan waa isna nabi baa laga dhigayaa Yusuf aabihiina waa Yacquub waa nabi rasuul weeye awoowihiisna waa Isxaaq waa rasuul kale Ibrahim baa sii dhalay oo isna waa rasuul kale qofka markii la dadka yaa ugu maaragtay sharaf badan nabiga markaas hadba qolo sheegeen markaasuu nabigu yiri dadka waxa uu sharaf badnaa Yusuf ibn nabiyillah afar nabi isdhalay aasoo kale haye hebel waa fulaan wallaan dheer ma heleys waliga helmaysi ya waxaas dadku sheegaan xagga iska dhigay ahadka noocaas oo kala weeyay marka nabi ilaahina waa noqon doonaa mar allah ceelkii ma lagu riday meesha meel khatar ma tahay godka hudii ku jira markiiba ilaahi la hadlay subhanahu wa ta'ala dadkaas waxay dad barakaysan wala la hadlo waxa lagu yiri lama waa inuu badbaadiyo loo sheegay meeshan ka bixi doono use ku jiri doono waan ilmo yar ya culimadu waxay yiraahdaan 12 buu jiray intaanu jiray tirada ilaahay baa yaqaan laakiin kulli ilmo yar buu ahaa ilmo la kaxaynayo ilaahay wuxuu yiri waxayna wada qaar baa culimadu waxay yiraahdaan waa sila waxayna daas hadalka hore ku xinanta markaa laakiin waxayna waan u waxyoonay ilayhi Yusuf baan u waxyoonay waa markii ceelkiisa lagu riday ayaa waxay loo waxyooday waxayna waa ay waxyoonay ilayhi Yusuf baan u waxyoonay la tunabbi anna waad u waramaysa laam wala muqassam la tunabbi anna waad u waramin hum walaalaha ilma Yacquub waad u warami doontaa بأمرهم أمر كودان هذا مت كان أي سميان وقد كأي كبر ذا وهذا جو ورهم الدنتا وهم يقول الله يشعرون أو حد دريمي حبوقي وفرس وحن مركي دونا قصة مركي قال سي سعته ما مركي تو بقر كنا والله مصر أي يقول أبا عارف كل عضي وبصاصي ورفاضي لا بتشير راشة كسوقتين ومر بكذا بنقضين مرصدحات أو ولا لبه هذا أي كان أو يروح هذا كقديمي أو ويل كين تبى كدمي مركز وحوران دونا يوسف maxaad ku samaysay Yusuf iyo walaalkii waxaas ku yiri ma aynaka la anta Yusuf waa wayaabe ninka inta boqorka ku soo noqonin ma walaal ninkan waa ceel ku ridayba saa sheekadu taasa imaan doonto way marka malagii baa u sii sheegay xagga Ilaahay baa looga shashay waxa la yiri meeshaana waad ka baxaysaa adoo awood leh oo maxaa ku raada walaalaha ayaa u sheegi doontaa maaragtay wixii ay kugu sameeyeen waxayna waan u waxyoonay ilayhi Yusuf baan u waxyoonay la tunabbi anna waad u waramaysa hum nimanka walaalaha oo tobanka ah oo hadeer meesha ku riday bi amrihim amarkoodana u waramaysa hada midkaana ayaad u waramid wal xaalhum iyago la yashcuruuna an dareemin ina Yusuf fatahay baan ka garanayn ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala maxay sameeyeen ma nimankii wiilka beesha ku soo rideen maantii waa maqnaayeen maalinnimadii ma iimaan habeenkii isku soo aadiyeen alla wuxuu yiri wajaa'u way yimaadeen abaahum aabahood bay u yimaadeen ishaan xilli habeenimo ah xilliga cishaha u yimaadeen yabkuuna iyagoo booyaya iyagoo oo hinaya yabkuuna iyagoo booyaya tabaaki baa leeyahay tabaaki oo hintu midna waa run qofka dhabbay ka tahay midna tabaaki baa leeyahay siyaaliyeel buu ooyaya marmarsiya beenbeena way yabkuuna iyagoo oo hin maartay oo hinti beenbeen tahay booyaya oo hinti been tahay ayay ooyayaan waxay rabaan marka inay ku yiraahdaan waxa la yiraahdaa cishaha maxay isugu soo aadiyeen habeenkii maxay isugu soo aadiyeen waxa la qofka raba inuu been marmarsiya sheego hadaad maalin qofku markuu been sheegayo hadal oo hin been iyo war been u la yimaado arrinta saan oo kale u weyn tahay qofka wajigiisa laga akhrisanaya inuu been sheegayo marka kullayba hadaad been sheegaysa habeennimadu waa ku caawinaysa indhahaaga wajigaaga looma jeedo oo intaan iyo beenbeentaan looma jeedo marka habeennimada coodaarka beenbeenta ah inta xilliga mugdigaaba la fiirsanaya waa soo gabalacsadeen habeenkay rabaan inay odagu isku hooyaan way qaalu waxa yaraya ha wajaa'u way yimaadeen ilma Yacquub abaahum aabahood bay u yimaadeen cishaan xilli habeenkii u yimaadeen yabkuuna iyagoo booyay u yimaadeen qaalu waxay yiraahdeen yaa abaana aabahayow inna anagu dahabna waan tagnay nastabiqu anagoo maaragtay anagoo orotamayna tagnay bay yiraahdeen wa tarakna Yusuf orotamayna nastabiqu laba tafsiir bay culimadu sheegeen nastabiqu tartanka caadiga oo dadku lugahooda ku tartamaana isbaaqa waa la yiraahdaa tartanka fardaha lagu tartamana waa la yiraahdaa
waxaa kaloo la yidhahdaa narmi annagoo toog baranayna nastabiqu labadaba waa lagu fasiraa marka in toog barashada iyo orodka lugaha lagu tartamo raggu ay tartamaan labadaba waa lagu fasiraa wey qaal waxaan ya aabaan aabahayo ina anagu dahabnaa waa tagnay nastabiqu annagoo toog baranayna ama nastabiqu annagoo tartamayna orotamayna wa taraknaa waanu ka tagnay yuusufa yuusuf cinda mataacina alaabtayda agteeda waan oga tagnay alaabta noo ilaali yani alaabta agteeda waan oga tagnay wiilka intaan hawshaa ku jiray fa akala waxaa cunay hu yuusuf adibu yeygii baa cunay wamaa anta adigu ma tihidin bimuminin mid rumaynaya lana annaga noo rumaynaya ya walow kuna aanba ahaanay saadiqiina kuwa run sheegaya laba sababood weeye bay u leeyihiin saas midi waxa weeye wiilka wiil aad jeceshahay buu ahaayo yani waxa lagaaga sheego dhan rumaysan maysid yuusuf baa bahal iska cunay arrintaas horta nooga qaadan maysid midda labaad nooga qaadan maysid waadba nagu tuhunsan tahayba tuhmad kalena waa kugu jirtaa bay leeyihiin marka aan runba sheegin hadda maanta run baanu sheegaynaa laakiin naga yeeli maysid bay saasay hormarsadeen wamaa anta adigu ma tihid bimuminin mid noo rumaynaya lana anaga noo rumaynaya walow kuna aanba ahaanay saadiqina kuwa run sheegaya waxaa la yidhahdaa hadalkaasay ku hadleen marka waxaa la yidhahdaa markii oohinta hadalkaan isku daray oohinta ay la yimaadeen nabiyullaahi yuusuf gadaalkii qofka is-oohiya baa layidhi intuu ku yimaado saasaa la yeelay inta ka dambaysay waxay noqotay qiso la wada yaqaan caloosha qof iska soo ridaya hadduu ku yimaado ilaa dadkii wax soo dhex mareen aad aragtid ha degdeg qaalib noqo cagaha dhig waxaa laga yaabaa caloosha iska soo ridana beenbeenta ummad soo baabi'iyey baa laga yaabaa sida kuwaan oo kale intay wiilkii kusoo ridaan ceel caloosha iska soo ridaayo oo kale wey marka saas oo kale wey daalimka iska dhigaayo qof lasoo dulmiyo oo kale wajaa-uu waxay la yimaadeen marka maxay odaygii tusaayaan waxaa la yidhaha sakla waxa neef yaroo maqalaba intay meelaha ku bireeyeen baa bay dhiiggii soo marmariyeen adugu dhiig bay meel heleen qamiiskii bay dhiig soo marmariyeen wajaa-uu waxay la yimaadeen calaa qamiisihi wajaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisa xaalay qamiiskiisa xaala ay dushiisa ku sugan tahay uu ku sugan yahay bidamin dhiiggaasoo kadibin dhiig beena isagoo qamiiska dushiisa ku yaalla keenay wey saasuu alayhi subxaana watacaala meeshaan wajaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi xaal ay qamiiskiisa dushiisa ahaaday bidamin dhiiggaasoo maaragtay kadibin beena dhiig waa been waana dhiig meesha ku yaallaa looma jeedo wuxuu dhiig maaha loolama jeedo waxaa loola jeedaa dhiiggaani waa beenoo dhiiggii waxay sheegeen waa dhiiggii yuusuf bay dheheen waana beenoo dhiiggii yuusuf bay waa dhiig kale saasaa beenta u socotaa wey saas daraaddeed kadibta waa iska masder waxaa leedaha ism waxay ahayd maaragtay bidamin makduubin wey mafcuul oo kale maana mafcuul bay ahayd masder baa loo isticmaalay wajaa-u waxay la yimaadeen calaa qamiiskiisa xaalay ku dul sugan yihiin bidamin dhiiggaasoo kadibin ay makduubin bihi lagu been sheegay dhiig lagu been sheegay waan ahayn dhiiggii yuusuf dhiig kale ah ayay ku keeneen wey kaasay keeneen wey qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub ambiyadu waxay dad aad iyo aad u cajo badan wax kasta xagga ilaahay qaala wuxuu yidhi yacquub bal iska badaa inuu wiilkaygii yay cunay ama dhiiggaan leeyahay sawalad way qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinu amran arrinba idin qurxisay wey inaa wiilka dishaan baa doonaysa ama dhibaataysaan arrinba arrinta idin qurxisay ereyga sawalad waxaa loo isticmaalaa qofka marka kiis weyn naftiisa u qurxiso oo khatar uu galo kale waa sidii tii saamiri xaha bal wakadalika sawalad li nafsi markuu dibiga beenta ilaaha sameeyey beenta qaala wuxuu yidhi bal sawalad way qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinu amar ba idin qurxisay fa sabrun jamiil fa amrii aniga arrinkaygu sabrun sabir weeye sabirkoo jamiilu qurux badan wallahu ilaahay baa almustacaanu loo kaalmaystaa calaa maa tasifuna waxaad sifaynaysaa yacni been baa sheegaysaa ilahay baa loo kaalmaystaa wey saasuu ku yidhi nabiyullahi yacquub wiilashiisii saasuu ku yidhi ilahay wuxuu subxaanahu watacaala falamaa dahabuu markay la tageen bihi wiilkii wa ajmacuu ay go-aansadeen an yajcaluu inay yeelaan hu yuusuf fii qiyaabati ljubbi maaragtay ceelka guntiisa inay yeelaan markay go-aansadeen facaluu waxay sameeyeen yani ma araadi waxay dooneen bay sameeyeen oo weelkii waa ku rideen ceelkii waa waxaynaa waan u waxyoonay markaa ilayhi yuusuf baan u waxyoonay latunabi'anna waan u warramaynaa maya latunabi'anna waad u warramaysaa yuusuf baa waad u warramaysaa wey latunabi'anna waad u warramaysaa hum nimankaa ilmo yacquuba walaalahaaya biamrihim amarkooda haadaa midkaan ay kugu sameeyeen iyaad uga warrami doontaa waqti kale waad badbaadaysaa waa la tusaya wahum iyagoo laa yashcuruuna aan dareemin oo kuba garanayn arrintan aan dareemin ayaad uga warrami doontaa wey wajaa-uu way yimaadeen abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaan xilli habeennima iyakuna iyagoo isboohinaya iyagoo booyayo wey waa boohin beene qaaluu waxay ya abaan aabbahayow in anagu dahabnaa waan tagnay
nastabiqu anagoo orotamayna oo tartamayna ama nastabiqu anagoo toog baranayna falaarta tuurayna wa taraknaa waanu ka tagnay yuusufa yuusuf cinda mataacina alaabteena agteeda baanu ka tagnay fa akalow waxaa cunay hu yuusuf adibu yaygii baa cunay wamaa anta adigu ma tihdi bimuminin mid rumaynaya lana anaga noo rumaynaya walow kuna abahaana saadiqiina kuwa run sheegaya wajaa-uu waxay la yimaadeen calaa qamiisihi yani calaa qamiisihi qamiiskiisa xaalo maarata korkiisa ahaaday ay mulqan calaa qamiisi qamiiskiisa iyadoo lagu dultuuray bidamin dhiiggaasoo kadibin beena ay makduubin bihi lagu been sheegay yaa dhiig beena iyadoo maaragtay haddii saa lagu daayana yani bidamin kadibin dhiig beena waa dhiiggii nabi yuusuf aan ahayn iyadoo qamiiska dushiisa ku yaalla ay la yimaadeen laakiin waxay soo ilaaween qamiiska inay jeexjeexaan oo tusaan qamiiskii bahalka inuu ku cunay cunugay qamiiska waxba kuma yaalli waa nadiif baa saasay mufasiriintu u badan yihiin yidhaahda qamiiska waa ma jeexnay markaasuu fiishay wuxuu yidhi haa dhiig waa ku yaalla oo dhiiggii wiilka miya ahaa oo hadduu bahal ahaa wiilkii cunay qamiiskiisana uu gashanaa qamiiskana waxaana dhiigga uu ku daadiyey bahalku muxuu qamiiska u jeexjeexi waaya qamiiskii waa nadiif ma fiiriso taasaa ka hoos baxday marka haddaad been sheegaysid haddaad 10 meelood gufaysid meel baa kuga soo baxaysa been sidiis arrintiis waa fashilmaysa waa ku soo baxaysa waayahay qaala wuxuu yidhi bal iska badaaye in wiilkaygii bahal cunaye meeshaan yaygaan bahal maaragtay yay ma cunin wiilkaygii sawalad waxaa qurxisay lakum idinka anfusikum nafiina amran arrin idin qurxisay فصبر فأمري أمرك يقول صبر ويصبرك جميل وروح بدن والله إلهي بقى المستعان ولا ترى سارتا علامات الله كالميس علامات السفن وحسفين يسان هذا بقى واحد عادي ويلك واحد ويهمي عيالك أرور بايمي وجاءت واحد تمي سيارة فصل أنت محبي إسك الشيء أنت سهبين بكتشري صدق بري بكتشري إلهي بقى يقال بكتشري قرآن مشي وجاءت واحد أنت ما أمرك إلهي بقى وطه وجاءت واحد تمي سيارة لا تصعدها بايمي هو صعدة سفر ريباتي سيارة وحلو يرادا معناها وعدت صعد بدن السفر دير كجرا وجاءت واحد من سيارة صعدتها تمي فارسلوا waxay soo direen meelaha ay degeeno waxay u soo direen qof ceelka loo soo dirsada hadii ceelka loo soo socdo baa loo soo hormariya hadii ceelka meel kale la digo ceelka biyo nooga soo dhaamaya waa isla meesh وجاءت واحد من سيارة صعدتها فارسلوا way soo direen waalidahum ceelalyadoodii ka aroorkooda way soo direen waalidku waa qofka ceelka u aroorada waalidahum ceelalyadoodii way soo direen faadla wala laadi دلوه ولانتيسي أما دلو بيسيب ولا لادي عيلك ولا لادي ما كل ربينه كنعميه مركز نبي يسوع حرق مركز ولانت عيلك وصل عدي وحرق سواق بصدي سنوي حسلي ولانتي وكوب حلو نكي وصوص صارية قال وحجر مركو ويل كاير قروح طبعا أركي إلى الشجرة قروح حالسية قروح ذا بركة بنبي يسوع السية بعد قال وحجر يا بشرى بشارة يسوع حاضر يا وبشارة سنة هذا كان غلام ويل وويل بعيلك يقصر بحيم ساسو نكي عيلك بيها كسو دامني قال وحيري يا بشرى أما يا بشرايا يا دوسك حرف النداوي بشرى هذا وحال هذا نكيرة مقصودة نكيرة مقصودة هذا قال وحيري ومنادها شنب وقع في السماء مركز النوع علوي قالنا نكيرة مقصودة نكيرة غير مقصودة يصفة العرب المضاف إلى شنب تاسو قيب السماء مركز تاسبا تناكم إذا مركز وحيري يا بشرايا بشارة يدوي أما يا بشرى بشارة بعدها هذا يا صار قدرين ده ترى يا بشرى يعني بشارة يدوي وي ده يا بشرى ترى ولا غيره ده يا بشرى ترى هذينا بشارة يوي صح هذا وهذا أوامك وقت جاي بالجاري يعني ويل بان هلا وفرح سنة يوي هذا كان غلام ويل وي وأسروا ويسريستين هو يوسف بيسريستين وقرصدين بضاعة بدعتها بيقرصدين بالي لمن كي هري منك بيها عيل كورتي كوحد بيها صوت وانت لسعتي dadkii kale oo awrta la wato badnaa bay rabaan wiilka inay ka qarsadaan oo iyagu si gaar ah u iibsadaan bay rabaan way qarsanayaan inay u sheegaan ma rabaan waa asru way siraysteen hu Yusuf bay siraysteeno bidaacada mafcuul labaad ama ka dhig ama waxa ka dhigta xaalo marka xaalo ay maaragtay badaacad ka dhiganayaan waxyaabo sheegaan culimadu waxay yiraahdaan waxay ku yiraahdeen dad ceelka joogay baa noo dhiibtay noo iibshay adoon weeye waxaas ku hadleen wallahi ilaahi ba caliim og ku cilmi badan بما يعمل وحي عمل فليان إله باكو علم بدن وفكاس بيتهلن حرطة عيالك كهلين بيبسنا يلا عكي بدلان يوم وشروه ماشان خلافات باكو شروه لبا تفسير با لقليايو وحا وحي يبسنا يو ولا عليه اسباب وحكا يبسنا يو تفاسير تقارنا ساسي إليه قارنا وحي لي مين منك قاديتك وتكليا وحا كنتي ولا عليه ماشي مسوق لي والشروه ويبسدين هذا وحي نقول إن تفسير كأها قلدي أورته ودتي سيارة داي سعتي سفر كاهي والشروه ويبسدين هو يوسف يبسدين بالثمن اللي عاد بيكون يبسدين يجا كلا يبسنية يجا ما كان حودي كلا يبسنية
ama laba tafsiir baa ku jira ama masar bay ka iibsadeen oo iibkaan la sheegaya waa markay masar geeyeen weli waxaa fiican laba jeer laba iib in laga dhigo markii meesha laga helan iib baa dhacay markii masar la geeyana iib kalaa dhacay oo la noqday labadaba la yidhaahdo labada tafsiirna waxaa la sheegay laba jeer ay iibsadeen marka midaan lagu iibsaday meeshii laga soo saaray oo halka aagii lagu iibsaday walaalihiisaa iib ka galayna waa la yidhahda oo nimanka u yimi oo ay ka furfureen wax xoola ka qaateen na waa la yidhahdaa ma iyaga dhexdooda wax kala iibsadeen waa la yidhahdaa washarow way iibsadeen dadkii bayna ku wadayna qaafilada awrta watay nimankii ceelalyada ceelka yimi ayaa iibsaday hu yuusuf bay iibsadeen bithamanin lacag bay ku iibsadeen thamankaasoo baksi raqiisa wey waa iga baksi ma dhahan waa luqadeeni baksi oo liito qiimo yar wey naaqisa lacag naaqisoo yar bay ku iibsadeen xale waxay ka baqayeen in dadkii dadkiisi intay u yimaadaan in lagala noqday waxaasay ka baqayen wax yarba iska sii isticmaalay waayahay daraahim bay ku iibsadeen bithamanin taa ka bedelaysaa midaan ya bithamanin bay ku iibsadeen baksin raqiisa oo jaban daraahima bithamaninta ka bedel ay sharahu waxay ku iibsadeen bithamanin sharahu haddana waxay ku iibsadeen daraahima lacag bay ku iibsadeen shilimay ku iibsadeen daraahimtaasoo macduudatin faraha la tiriyo waxa yaroo fara ku tirisay ku iibsadeen wa kaanuu waxayna ahaayeen kuwaas iibsaday fiihi yuusuf min azaahidiin inta ka zaahiday oo ka tagtay aan waxba ku falayn bay ahaayeen ka jeesaday ka zaahiday haddii walaalihii laga dhigana waxaa la odhanayaa wa sharaw way iibsadeen ilma yacquub hu yuusuf bithamanin lacag bay ku iibsadeen markii ay ceelka lagala soo baxay ay ogaadeen ilaa niman meelaha ka dhow korjoogtaa bay ahaayeen ayay dheheen addoonka annagaa iskale xoogaa baa loo tuuray waxay xoogaa naga siiyo nagala tagay meesha doontaan la aada taasna waa tafsiir wey markaas weliba tafaasiir in badan waxay sheegayaan in ilma yacquub wax ka iibsadeen washarow way iibsadeen ilma yacquub hu yuusuf wax ka iibsadeen bithamanin lacag bay way iibsadeen dheh bithamanin lacag bay ku iibsadeen lacagtaasoo baksi jaban raqiisa oo naaqisa wey naaqis aada u yar daraahima lacag bay ku iibsadeen thamiinta ka bedel daraahima shilimay ku iibsadeen daraahimtaasoo macduudatin la tiriyo wey wa kaanuu waxay ahaayeen fiihi yuusuf min azaahidiin ilma yacquub fiihi yuusuf min azaahidiin inta ka zaahiday haddaba masr baa la geeyey nabiyullaahi yacquub calayhi salaam masr baa la geeyey sidii baa marka waxaa imaanaysa inuu maaragtay ninkii waxaa laga gatay masr markii la geeyey waxyaabay mufasiriintu sheegaan tiro badan oo lacag qaaliya la kala siisanayo waxaasoo dhan geli mayne wixii nusuusta aan ku hayno keliya aan ka soconayna qur-aanka waxa weeye wax cad baa la sheegaa wa qaala wuxuu yihi ninkii markaa nin casiis ah oo maaragtay boqor maaragtay khazaain maaragtay masr haysta ayaa laga iibsaday ninkii baa naagtiisi la hadlaya wuxuu ku leeyay ninkaan wiilkaan inoo hay buu leeyay wa qaala wuxuu yidhi alladii ninkii ishtaraahu iibsaday shiraaga waxa la qofka la soo wareega badeecadda isagaa la wareegay wey wa qaala wuxuu yidhi alladii ninkii ishtaraahu la wareego iibsaday min misra reer masr xaalo u ahaa ninkaas limra'ati xaaskiisi wuxuu ku yidhi naagtiisi wuxuu ku yidhi akrimi karaamee mathwaahu makaan nagaashiisa karaamee wiilkaan gogasha iyo nolosha iyo cuntada iyo meeshu seexana iyo akhlaaq isagoo dhan ba hagaaji akrimi karaamee mathwaahu makaan nagaashiisa maaragtay hagaaji uu ku yidhi karaamee casaa wuxuu moodan yahay an yanfacana inuu na anfaco oo hadduu koro xoog yeesho wax noo taro aw mase natakhidu inaan ka yeelano wiilkaan walad inaan ilma ka dhigano waxa la carruur ma ay lahayn inaan ilma wiil ka dhiganoho oo hadhow uma maaragtay naba dhaxlaba haddii inta ilma ka dhigano ilma aan dhalo kala noo noqdo wey wakadalika ilahi wuxuu wakadalika sidaas aan u makarinay yuusuf ninkii qalbigiisa baa loo jilciyey baa layidhi yuusuf ninkii gatay baaba qalbigiisa loo jilciyey islaantii wuxuu leeyahay sidii saas ugu dhegan yahay wiilkii wakadalika sida aan yuusuf u makaninay dhulkii oo meesha u dejinay masar u geynay baan makana u makaninay yuusuf fil ardi dhulkii masar u makaninay wey arladan waxaa laga wadaa ardu masar baa laga wadaa dhulkii masar baan maaragtay u makaninay iyo walinucallimahu inaanu barro min ta'wiili axaadiisi wararka maaragtay axaadiis iyo wararka cabiridooda taawiilku waa tacbiirku waa riyooyinka cabiridooda inaanu barro wey ayaanu saa u yeelay wey waxyaabaha marka uu meel ku gaari doonana ka mid tahay shayada wallahu ilaahay wuxuu ahaaday qaalib wallahu ilaahay qaalibun kii u qaaliba wey ka qaalibayo calaa amri amarkiisa ka qaaliba wey arrinta uu ilaahay damco inuu fuliyo qaalib buu ka yahay cid arrintaa ka farmaroojin karta ama ka joojin karta ma jirto wey ilahay arrintiisa qaalib buu ku yahay wey qaar baa waxay ku fasireen wallahu qaalibun ilahay wuxuu qaalib ku yahay calaa amri yuusufa qaar baa saa yidhi laakiin waa laga xoog badan yahay ilahay arrintiisa ayuu arrintiisa ilahay baa qaalib ku ahaayo dadka kale waxay wateen oo dhantii ilahay baa ka hirgashay qaar baa saa u fasiray wallahu ilahay baa qaalib wallahu ilahay qaalibu kii qaalib ku awey calaa amri amarkiisa walakina akthar naas dadka badankood laa yaclamuuna ma garanaya ilahay arrinkiisa inuu qaalib ka yahayo siba dadka gaalada ahay ma garanayaan waxaa kaloo leeyahay akthar naasna waxaa laga wadaa qoladii walaalisa ceelka ku riday iyo kuwa ceelalyada qodka kala soo baxay ceelka iyo kuwa kaloo ka iibsaday iyo kuwa masar loogay intaasoo dhan hadii la isku duuduuba arrinta yuusuf waxba kama garanaya ilahay baa arrinta u qaalibaho yuusuf meel baa loo wadaa wey arrintiisi waa ka weynta inuu la kala gadgato iyo waxa
walamaa balaqa markuu gaaray ashuddahu kamaalkiisa 30 buu gaaray 40 buu gaaray waxba waa la yidhahdaa markuu weynaantii xoogiisa gaaray aataynaahu waxaanu siinay xukman xikmad baanu siinay xikmadda waxaa ka mid ah nebinimo iyo diintoo lagu dhaqmo yaa xakiim waxaa le qofka xaq diinta cilmiga ku dhaqmo wey xikmad baanu siinay nebinimo iyo diintoo lagu dhaqmo wey iyo wa cilman cilmi baanu siinay wakadalika sidaas aan u badbaadinay yuusuf ayaan najzi u badbaadinay almuxsinin dadka samafala oo dhibka uga qaadnaa bu alla subxaanahu watacaala taasuna waxay ahayd nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waxyaabihii uu kala kulmay wey وجاءت waxaa timi sayaaratu dad socota baa yimi faarsalu way direen waalidahum keedu ceelalyada ahaa ceelka uga soo biyo dhaaminayay waalidku waxa qofka ceelka loo soo hormariyo waalidahum kooda ceelalyada ahaa ayay soo direen fa adla wala laadi dalwo hadii la adla dalwo hadii la ceelka markii wadaanta lagu rido way dalwo hadii la oo hamsada laga tago dalaa la akhriyana uu ka soo siibay ceelka ka soo saaray luqada saas loo kala isticmaala waaye faar وجاءت سيارة فارسل والدهم فأدلاه رارعيي وسيري دلو سعيد وريتي قالوا ويلك صباحي ما قالوا يا بشرايا بشارة صح حاضر بين هذا كان غلام ويلوي يا واسروه ويسريستين قولدي ماشي كسو قبستي ويلك عيالك كلا صباحدي واسروه ويسريستين هو يوسف ayay سريستين قرسدين waxay ka qariyeen inay baari ahaan u heleen bidaacatan badeecadahan isagoo inay gashaan bixi wallahu ilaahina calimu kiiku cilmadu way dimaa yacmalu waxa amal falayaan washaro way iibsadeen qoladii markaa meesha ka soo heshay hu Yuusuf ay iibsadeen bitamani lacag ku iibsadeen waqti oo jaban oo naaqus way daraahima waxay ku iibsadeen daraahima hadara ku celi daraahima ka bedel tamanta ka bedel daraahima shilmay ku iibsadeen macduudatin la tiriyo haday ilma Yuusuf leeyahay sida ku soconaysa way wakaanu waxay markaas moodaa wakaanu fihi min az-zahidina marka la leeyahay in ilma Yacqub hadalka uu weydiisay sababta ku tahay walaalihiis in lagu xanuunka ay sameeyeen walaalkood cidna saa uga tagay sida ku ilaa way wakaanu waxay ahaayeen fihi Yuusuf min az-zahidina kuwa ka zaahidaho sidaa ku ilaa saab kaga taga way oo saab kaga martay ku kala taga way zuhdi waxa la yiraahdaa wixii aan nacdin saas kuwa ku dhacay faraha uga qaaday saad maxaa yeelay maaragtay kaanu fi thamani min az-zahidin laannahum lam yakun ma ay garanayeen wallahi maxamed waxa ka wadan wallahi Yuusuf qiimihiisa iyo waxaas ma ay garanayeen saa daraadeed bay uga zaahideeno waxa ay ka dhigan axad ama qiimo saas lahayn waaya ilaahi subhanahu wa ta'ala وقال وحجر الذي نك اشتراه يبسده هو يوسف يبسده من مصر حاله كسبنا نك سرير مصرها لامرأة حاسكسي وحو كيري أكرمي كرامين مثواه مكان رجاشيه سويل كان ماشي كنوري نرشي سي تشيف كي سي حاجات عنتدي سي عسى وحو مضي حقق وياه أن ينفعنا إنه فراسة دي سكجرتني قيمة لإنه يهاي أن ينفعنا إنه مارتن أنفعون مضيع أو مثلا نتخذنا إنه كدجنا إنه حناطر مركوينات أو نتخذنا كدجنا ولد إلما كدجنا وكذلك سيدا أمة كان يوسف وأن مكنا إلى يوسف مكانين في الأرض دول كمصر ولنعلمه إنه مبرر من تأويل الحديث ورك عبرات دول الشيخوين كده أي ورك كيانات وح مقال كده كده مايني والله إلهنا قالم كي أرجوي على أمر كيسكو أول بدنوي ولكن أكثر الناس بالضبط لا يعلمون ما كرميا ولما بلغ مركو قال امتحان كاس لما امتحان هذا مرينا ميدوا قدك ولا لين الدلام بيرمين دلك وكداين وحي كل ذا عيلك هذا عيلك المدة كتير إله وقرنا عيل كاس وقتي اللي قولي مد labaadna waxay ahayd hadda waa la kala gatay reera Masar joogo adoon u yahay waa riqi adoonnimada waxay tahay waa garanayso hadda nabigi afarta nabi iska dhashay saddex nabi iska sii dhashay nabi afraad noqonaya hadda reeru adoon u yahay wiil reer u jooga adoon la kala gatay lacag soo siistay taasna waa mixnadii labaad tii saddexaad baa hadda ku dhacaysa waraawadad waxa ka doontay hu Yuusuf allati haweenaydii baa ka doontay huwa isagu fi beeyta gurigeeda ku noolaa an nafsi faaxisho iyo zina ka doontay ya naftiisa inuu ka zinaysto ayay ka doontay وغلقت way soo xirxirtay alabwaab albaabadi way soo xirxirtay guriga albaabadiisa way soo xirxirtay غلقت الابواب غلقتنا waxa ku jira tadciif baa ku jira kelmadda abwaabtuna jamc weeye gurigu guri weyn ah albaabada badan soo xirayo baa laga qaadanaya وغلقت way soo xirxirtay ma dhahaysid way soo xirxirtay weeye hadalka waa karkar waxa ku jira mukarrar weeye وغلقت way soo xirxirtay alabwaab albaabadi dhan bay soo xirtay وقالت waxay tiri hayta laka tacaal kaalibati hayta laka lafdigan qofka markii loo yaray hayta laka yani kaali bitay waxa loo isticmaalaa ko tacaal kaali waa la yiraahdaa halumma kaali waa la yiraahdaa asr soo degdeg waa la yiraahdaa taqarrab soo dhow waa la yiraahdaa hayta laka bay ku tiri midda kale waa ismu ficil amr baa la yiraahdaa ismu ficil amr xagga luqadda naxwaha ismu ficil amr baa la yiraahdaa hayta laka nin haduu yasaas loo waray haday naagta hayta laki baa loo oran afka la hoos dhigaya haday labay hayta lakuma baa la oranaya haday rag badan hayta lakum baa la oranaya haday dumar badan hayta lakunna baa la oranaya كلمات مركز أساس وسعتها صدق قروي صدق معنا إلى بعض صدق كنت معها هيت سائل لي هذا يهيت إن لي هذا الله حاصله
يهيتو وتأذى للجذب صدق حاسك التمادى قال وحيري نبي الله قال وحي نبي يوسف وحيري معاذ الله إلهي ما قال كيسب ما قال ما يعني ما قال إلهي بيقول معاذ الله إلهي وحلا جمع قالوا إلهي معاذ الله ما قال إلهي بيقول يعني ما قال إلهي ما قال يوم أريد أشيكتي إنه ننكي كقبيبي ربي أنا سيد كي جاها أحسن واحد جاتي مثواي ماشي عن كنا راهي مقام كي ماشي عن مقام تشوق ماشي عن دجناهي ماشي عن مرت كاني ننكا سيد كي جاها وهذا ننكا جاه هو هجاتي أرنك لو حيتاي إنه أرنك وحي شانية لا يفلح من اللي بانان الظالمين والظالمين وضدك الظالمين توخيانة وضدك جريه هذا كله والزنا كالسمية مركب وحي ننكا وأي هجاتي خير كي سنة لجمع يابو إن حمل لعاد وح صورة قلم ما هبولي تاسوا تفسير كلا بعضه اللي يراه ولي النبي الله أنبياء وكسي في عيها إنه إلهي إنه ضميرك وحى مركا لو علنيا إلهي خالق إلا وحي معاذ الله إلهي لما قال صدا إلهي ولا جنب جن قلاوية أرنتاس ما نقليه إلهي وي ما جن إلهي وي إنه إلهي أبو خالق رب إنه قال ربي جيوي ربي جيها إنه قال ربي جيها أحسن واحد شيء مثواي مكان شوقي إلهي واتو يسبت بعد قدكي واتو دبات الصومري ماشى هذا أن شوقا ميلا هو نفسنا هو يقولي مركا إلهي خالق مركا شيء يوم ساسا في عم بالي هذا لبضوا ولا مفسر إنه شأنه لا يفلح الإيمان ميان الظالمون كل الظالمين تظلم الجلاء وأنت ما عرف له كعوي إلهي وحي سبحانه وتعالى حاد عدونا مركا ولقد همت ويهمدي به يوسف بيهمدي إسلامتي ويدمع ذي في صومالي هم يعني وأدمع وي دمع النبا كجلاي وواحد كد لا شيء نكائر فاحشة بسمي ولقد همت ويهمدي به يوسف بيهمدي دمع ذي دمع باك جلاي وهم همي بها أيضا لولا أن رأينا أركن ميانه لولا أن رأينا أركن ميان برهان ربي حجديسي هي برهانتي دليلكيسي إنه أركن ميانه يسقنا وهميوي هم أنت مركا أي علماء أخبار بدن إسرائيليات بلاي بالجبوا حي كتبتي وحصل الصوري لبس يوضا يرير وقوم بحين أنبياء وحوي كمصور الجلاه وحياة حدثك كلا كسور الجلاه هم قفتها هم معصية ونبضوا أها لكن هم النبي يوسف وحلا قدم كان لولا أن برهان ربي وأصيله وهي علماء كسر مثاليات ماركت إن كادت لتبدي به لولا أن ربضنا على قلبها نبي الله يوسف نبي الله موسى هو يدي مركي فرعون يبدي كسارين وحيكون سكت هلا وأول كي هاي قد إنه تراعده تيو كروي لكن قلبي قد نجح حريو تي ما يلمي تايب عليه هذا همي يعني همي ضارب ما وحسيها وح قلبي سكت صار عاد ما هين همي ما قلبي موسى هين أيضا كتبت موي لولا أن ربضنا به أصوامد مد الله بعدنا وحي هذا همي يعني وحوها حمد خاضرة قفك قلبي سكت صار عاد وحي علماء كل مثاليات أضاء الصومنا قرح كليل شو هرات بدن وكهيو أيها قفك بيو يبغى أركايا بيها نفته وير نفته وبهنت لكن إلهي درتي سقف كانوا الصومية لقما يابا يوافره تاسو خلك كدغن تاي امي نوع عن تاسو خلك كدغن تاي وخوادر قلبي كسو دحاي لكن حمان النبي يوسف مهمن اول لو كبلا معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم انت سو هذا بهرمش marka damana waa ka carray albaabka ka bixu rabaa taasu وهم بها لولا ان راينا arkay mooyaan burhaan rabbi burhaantiisa inuu arkay mooyaan oo burhaantaasna waxyaabaha badan oo sheegi mayno kulli waxa ugu horeysa nabinimadii ilaahay siiyay isagoo reer nabi qoys nabi ka dhashay ku barbaaray wanaag ku barbaaray oo zinada waxa ay tahay oo xumaana daliilkeeda garanaya inay zinadu kabaa'ir tahay dambi xun tahay iyo wada xun ay tahay buu garanaya burhaantu taas weey ina daliil haysatid wada cad aad ogtahay waxa inuu wax xun u yahay taas waxa haystaa weey كذلك إلهي سبحانه وتعالى كذلك سيدا أنو قصر فيني كذلك برهانتا أنو مارت كقصر فيني نبي الله يوسف وأساء يلا يبالي مصرفة صرفنا عنه يوسف بكسر فينا السوء حمانتا يولفحش حمانتا أو نقودهان يولفحشاء الزنرو وفي القرآن كبلارة ديسا ما هي يوسف إلا قعلي حمانتي حمانتا يوسف لقى معلن يسوي الصوء مصر صعدة قف حمانتا لقى علي قف حمانتا أصول صعدة حمانتي يوسف سوء عادي naagta soo xumaan lama soo aadan iyadii xumaantii naagtii wixii la celinaya yusuf maashi soo joogay isagoo bandar buu fadhiyaa marba xumaan waba socdaba linasrifa kadalik linasrifa ina ka ilo ka celino عنه يوسف بان كعلينا أصوا حمانتي صوت دورتي بانو كعلينا يقول فحشاء زندي وحي لا سؤالي بانو كعلينا ناوي markii qof la yiri xumaanta soo aadaba waa laga hor istaagaya xumaanta soo la aadi maysara maxaad moodaa isagii markii uma soo socdo tana ku tusaysa inuu san hamin innahu arinku wuxuu yahay innahu yusuf nabi ilaahi baa dhahay innahu yusuf
min cibaadina addoomaynu ka mid almukhlisiina ikhlaaska aanu dooranay wey mukhlisiina haddii la yidhahdo addoommadii aanu si gaara u dooranay wey addoomahaan dooranay buu ka mid yahay haddaad mukhlisiin akhri laamta hoos dhigtina addoommadina cibaadada noo khaalisiyo muwaxidiinta uu ka mid ahaa wey haddaba maxaa dhacay wastabaqaa way tartameen albaabkay u tartameen wastabaqaa alifkaa ku taagan baa labadoodii faacilkii wey wastabaqaa way tartameen way dhaqtameen albaabkii bay u kala ordeen isagu wuxuu rabaa inuu albaabka xoog uga baxo iska furo yana waxay rabtaa in albaabka uusan furin ay ku qabsato ka sokay ay guriga ku haysato idabdaro ku sameeyo wastabaqaa way is eryoodeen albaaba ilaa albaabka laga gaaray waqadad way jeexday qamiiskiisa min dubrin dhabarka ka jeexday wey ilaa way eryoonaysa gadaal bay qabsatay waa usoo dilaacay qamiiskii wa alfa yaa waxay heleen sayidaha ninkeedii sayidka marka waxa laga wada zawjaha wa alfa waxay heleen wajadaa waxay heleen sayidaha ninkeedii bay heleen ladalbaabi ladaa bimacnaa cinda albaabi waa daraf ladalbaabi ay cinda albaabi albaabka agtiisa ka heleen ninkeedii ninkii baa wuxuu ku yiri labadii qof is eryoonaya baa albaabka kusoo gaaray wey qaalad waxay tiri haweenkan meelaha khatarta ku yihiin aan lagu gaarin meelahan oo kale ku daqiiqad bay waxay ku keenayaan mushkilo aan la ogeyn iyo arrin cusub hal mar bay kala bedeshay wey hal mar bay hoondadii bedeshay waa qoftii ninkaan caawa si uga baxsan lahaa uu lahaa hal mar bay arrintii bedeshay qaalad waxay tiri maa jazaau abaalkiisu muxuu yahay man araada qof ka doonay biahlika xaaskaaga su-an xumaan nin reerkaaga xumaan ka raadinaya abaalkiisu muxuu yahay ilaa an yusara in la xiro xabsi la dhigo mooyaan aw cadaabun aliimun ama cadaab xanuun badan la mariyo saasay tiri wey marba way bedeshay wey nabi yuusuf hadalkana ma dhihin awalla markii hore ma u hadlin qaala wuxuu yidhi hiya iyadaa raawadatna iga doontay can nafsii nafteyda iyadaa xumaan iga doonaysay buyi intaasuu ku daayay ilahay baa badbaadiyay subxaanahu watacaala waxaa la yidhaha qof marka washahida waxaa marakacay shaahidu min marakacaya oo min ahliha ehelkeedii ka mid ah shaahidkaana waxay carruur buu ahaa iyo qof weyn buu ahaayo caaqilaho waxbuu kala xukumaya anaa xukumaya labada qamiis ma jeexanya hadduu jeexanya dhinacu ka jeexanya anaa kala sheegaya labadaba waa la yidhahdaa waxaa moodaa qisada markaa fiirisay shahida shaahidu min ahli qisada sida u tilmaamayo inuusan ilmaba ahayn uu yahay qof weyn oo kale maxaa yeele ilmaha isagaaba mayar inuu hadla iyadaaba mucjisaa wey washahida waxaa marakacay shaahidu mid marakacaya xaakimna waa la yidhahdaa waxaa wax xukumay mid wax xukumaya oo min ahliha reerkeedii ka mid ah waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid a qur-aanku sheegay cajaa'ibta ah qofkaan wax kala xukumaya markhaanti furaya iyada qaraabadeeda wey qofka qaraabadeedi hadduu ninka boqorka qaraabadiisa ahaan lahaa dee naagta damba kama ogoleen qoftaan dumarka ah laakiin qofka qaraabadeeda sharafteedu ilaalinaya qofkaasaa markhaanti kacay wey min ahliha reerkeedii ah waa lagu kalsoonaan karaa markaa wey muxuu yidhi qofkaasi waa kan ku markhaanti kaca ama waxa ku kala xukumay in kaana hadduu yahay wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay qamiisu yuusuf qamiiskiisu hadduu yahay budda mid la jeexay min qawlin xagga hore laga jeexay xagga hore fasadaqad iyadaa run sheegtay isagaa qabsanayay wa huwa isaguna milalkaadibin inta beenta sheegaysu ka mid yahay qofta isagaa qabsanaya isagaa doondoonaya wey iyadana waa iska celinaysa wain kaana hadduu yahay qamiiskiisuna budda mid laga jeexay wain kaana hadduu yahay qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu hadduu yahay budda mid laga jeexay min dumin dhabarka dabada mid laga jeexay fakadabad been bay sheegtay wa huwa isaga yuusufna min asaadir inta runta sheegaysu ka mid yahay wey isagaa run sheegaya ninkii boqorka ahaa marka intaasaa ku dhacday qofkaan meeshuu joogay baa lagu haya qaar waxay yidhahan boqorka isaga isla socday iradda isla joogeen waxyaaba badan baa la sheegaa laakiin kolley qofkan waa qof warkii gaaray isagaana kala saaray waa nasri ilaahay u furaayo subxaana wa tacala nabillahi yuusuf wey falamaa ra'aa markuu arkay huwa boqorkii ninkii sayidka ahaa oo naagta ninkeedii falamaa ra'aa markuu arkay ninkii zawjkeeda ah ninka naagtaa qabay qamiisa yuusuf qamiiskiisii budda in la jeexay min dubrin dhabarka in laga jeexay qadaal inuu ka jeexan yahay qaala wuxuu yidhi wuu gartay in iyadu idadarada waday qaala wuxuu yidhi inahu arrinku wuxuu yahay min kaydi kunna dhagartiina haddaa haweentihiin buyi inahu damiirka ku jira aayad dhan buu u taagan yahay inahu warka aad sheegto ahayd maa jazaau man araada biahlika suan ilaa an yusana cadaabun aliimun warka aad tiri buyi inahu warka aad sheegaysay buyi inahu damiirkaa keliya buu aayaduna kusoo gaabiyay luqada carabiga waxyaabaha kamid taha cajaa'ibteeda kamid tahay hal damiir baa wuxuu intaasoo hadal loo soo qaadanaya inahu warkaad sheegayso ahayd nin baa guriga maaragtay dare ila doonayay arrinta aad ku hadashay min kaydi kuna dhagartiina ka mid tahay haddaa haweentiin buyi ina kayda kuna dhagartiin cadiimu waa weyn tahay saasuu ku yiri dhagartiina waa weyn tahay meesha la yidhaha shaydaanka iyo dumarka markay hawlahan oo kale noqoto dumarkaa khatar maxaa shaydaanka ina kayda shaydaani kaana daciifan baa liyi haweenkana ina kayda kuna cadiim baa liyi qur-aanka labadaas u kala isticmaalo fiirsa maxaa dhacay marka yuusuf odagii marka muxuu wax ku xalinaya bal u fiirsan meesha si wax ku xaliya dadka madaxda ahi xagga sharafta iyo maba fiirshaanba guryaha barwaaqaysta iyo dadka reeraha ladan iyo xoogaa in ceebe suuqa u gashay ilaaliyaan bas laakiin isagii wiilkiina hadal buu ku yidhi islaantiina hadal buu ku yidhi meeshii arrinta kama buu qaadin yuusufow yaa yuusufu halakan waa munaade xarfunidii ka maqan yahay yuusufow cadid ka jeeso can haadaa warkaan buu yidhi mar dambe yaa lagaa maqal sheekada aamus waxa qarib warkaa qarib uktub qarib wey
واستغفر يدي بكل تنسلي واستغفر الذنب الناف ويديسو لذنبك الذنب قال استغفارك ويديسو يدي بكل إن كنت واحد إنك أدوك كنت واحد هاتي من الخاطئين أنت قف سنيد بعض قفك أداء سميين يري ساسو كل ذنب الناف ويديسو يوسف عدد كتير عن هذا وركان قريب أنت قريب يلا وركان سوق قريب واستغفري أدوك استغفار ويديسو كل ذنبك قال استغفارك ويديسو إنك أدوك كنت واحد هاتي من الخاطئين أنت قفت أداء قف سناب كل ساسو مركب كل لا وحي سبحانه وتعالى والراودة وحى كدونتي هو يوسف الله تهواني هو يسوق في بيته يقول يدا كجري عن نفسي بكدونتي ولقت الابواب الباب بي سو خرتي وقالت waxay tiri hayta تعال اي هلو مكالي hayta laka kaalay bay tiri inta xumaata bay u yeerisa qaal wuxuu yiri macaad allah ilaahay ma galkiisa way ilaahay baan kama galay way intaas innahu rabbigay innahu allah rabbigay aha ahsana waa hagaajiye matwaaya ama innahu ninka adiga ku qabaa rabbi aniga sayidkayga aha oo aan adoonka u ahay ahsana matwaaya ma kaanu nagaasi meesha ku noolahay waa u hagaajiye وصفة عم يسوي دويه إنه أنا كوحي لا يفلحوا ظالمين تدك قوليه هذا قشة ظالمين تملي بانه وفك سانو كلا سمي ولقد همد ويه همدي به يوسف يكون همدي وضم عضيين يحمام وكسنا وهمد بها سنوا همين وأعطيه كلا عين لولا أن ربضنا عينا لولا أن رأينا وأركب برهان ربي مارتي برهانتي سي حجدي سي دليل سي أركب ويان كذلك سيدا نقول لي إحنا يوسف حمانته وأن برهانته أوتو السنة يبقى نصرف أقول لي إحنا عنه يوسف أسوأ حمانتي ما كعل الناوي يوفح شعر يسجل العلم الحمانتي بالحناية إنه يوسف من عبادنا بكمل المخلصين عن دورني وخالص نوعها واستبقى ويترتمن ويس عيرسدن الباب حقيقي سؤال يودنوي وقبضت ويت شحري سلانتي قميص يوسف يشحري من دبر دبرك تاسع نقطة فرج بنقطة النبي يوسف قميص يشحري والفياء وحي لكل ما وجدا وحي كهلن سيدها زوج كذي الله ضل الباب أكتيسا قالت وحي تري مركي أريد أركتي إنك أركي إن سايستان قالت وحي تري ما جزاء أبالكي سبحية من أراد بأهلك إنك غيرك أهلك وحي كبدا زوجك من أراد بأهلك غيرك إنك كدوني سواء حمام إلا يشتروا عذاب أليم إلا حرام عذاب حنون بدل مريم وياه إلى علماء ذا كبر بدين رجل هذين هل خارج شيء واحد وده هوي عذاب كان أليم كان إلا جراعية وحسوي شعلانة يقف توحلي واكل بين وحكاة صور قلم صور إنه نورا ذا يرفتها إليه لا وحي هي يدا راودة اللي يقد دونتي عن نفسي نفس اللي يقد دونتي وي والشهيد ده وحى برخانتك عي شاهد من برخانتك عي وحكم حاكم هذا حاكم حكمنا والين هذا من أهل قويس كذا كم هذا ويلا حاجة كصعدة وأنا بركة وركس وأروك الصنانية إن كان هدو يهي بالقميص وقميص قدام مدة شحي من قبل الحاجة هو اللي جت شحي فصدقت هي يدا هون شكتي وهو يوسف من الكاذبين أنت بنت شيء يوسف كم يهي وإن كان هدو هذا قميص يوسف قميص كيس قدام مدة شحي من قبل الحاجة ضمه فكذبت يدا بين شكتي هي وهو يسقنا يوسف من الصادق أنت شيء يوسف كم يهي فلما رأى مركو أركينك بقرك وناك تنقبي قميص كيوسف قدام إلا شحي من قبل دبرك قال وحي إنه هوين هاي هذا الكاكو هذا ليس إنه وركات شكتي وأها من أراد بأهلك سوان هذا الكأها من كيد يكون دقرتي مكمل هذا الكاكيان يسكب بعدين أي إن كيد يكون هذا دقرتي عظيم ووين هذا هو أنت هوي يوسف وعرفت كتير عن هذا وركان قريب واستغفر الذنب دافع نوي يدي والله الله واستغفر الذنب دافع بذنبك إنك هذا كنت وحلاتي من الخاطئين أنت قف سنبات قفتي بعد كم تاي والله أعلم.